بسم الله الرحمن الرحيم wargelin bulsho kow dib u bilaabidda canshuuraha maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar waxa uu mulkiilayaasha guryaha iyo daaraha magaalada Muqdisho ku wargelinaya in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay Khamiis 19 January sanadka 2023 dib loo bilaabay qaadista canshuuraha guryaha oo hore loo hakiyay markii taariikhdu ahayd 24 Oktoobar sanadkii tagay ee 2022 ujeedooyinka ugu weynaa oo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar hakintaasi u sameeyeen wuxuu ahaa in la hagaajiyo nidaamka maaliyadeed iyo hanaanka qaadista canshuuraha guryaha si loo xaqiijiyo hufnaan, daahfurnaan, kalsooni iyo sida lagu gaari karo kobac dakhli oo lagu gaari karo kor u qaadista adeegyada aasaasiga ah nolosha iyo horumarka shacabka ku dhaqan caasimadda Muqdisho maadaama qof waliba oo mulkiile ah ay waajib ku tahay bixinta canshuurta waxaa laga codsanayaa in si dhow lala shaqeeyo laamaha qaabilsan qaadista canshuuraha guryaha iyadoo la marayo nidaamka maaliyadeed ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar. labo wax ka qabashada guryaha burbursan ee ku yaala caasimadda Muqdisho maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar oo ka duulaya ilaalinta bilicda caasimadda Muqdisho isla markaana doonaya in caasimadda ay noqoto mid la mid ah kuwa dariska hesho maalgashadayaal caalami ah ayaa si loo gaaro hiigsigaasi waxa uu mulkiilayaasha guryaha burbursan ee aan la deganayn ee ku yaala faras magaalaha iyo guud ahaan caasimadda loogu baaqayaa in ay dib u dhistaan oo ay doorkooda ka qaataan dib u dhiska iyo horumarka ka socda dalka iyadoo dawladda hoose ee Xamar ay diyaar u la tahay